بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo ku hadla afka Soomaaliga, waxaan caawa u sheegayaa shantii Soomaaliyeed inay nooshahay. Uraysoyaalku ma dhinto, uray taariikhdu ma dhimato, waa qadiyad weeyaan. waxaana aan rajaynayaa nabad in lagu helo. الحقيقة مطاعد أفر بدن بان لدقال مايي آدم برد عالي مالتي دوين حلك لغا قاضي أنا قلت كي كفر حيمانا نحين dhibaatooyinkii uu ku sameeyay Soomaaliyana waa ii muuqdeen oo anoo Kenya joogaanba ka hadlayay. WhatsApp-ka iyo Facebook-ka labadaba aadan waa iigu jiraa, wuuna dhegaysan jiray. waxaa taa ka horeysay mar Kenya la tirinayay populationska ku nool Soomaalida, halkaa ku nool 2 milyan baa laga jaray. kow isweydiiya sababta. wayaanay madaxa la soo kacay. hadda waa dad Ilaahay abuurtay oo nool oo la tiriyay ayaa tiradoodii 2 milyan kow laga siiyay. waa inaad markaa wax fahamtaan oo uu fahmaa qofka Soomaaliga ahi, ama Kenya ha ku noolaado ama Ethiopia ha ku noolaadee, haddaanu garab haysan, haddaanu cudud haysan, in wixii la rababa laga yeeli karo. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. waxaan xusuustaa dowladdii militariga ahayd markii ay jirtay ayaa waxaa lagu xidhay dhowr nin oo baayac mushtariya Kenya gardarro. Jomo Kenyatta ahaa baa markaa madaxweyne ka ah. Maxamed Siyaad Barre unbaa u diray fariin. within 10 minutes haddaanan maqal in la sii daayay nimankaas, towerkan garaacayaa buu yidhi Kenya oo taa laga qaaday. waxaan taariikhda u soo qaatay warhooy Soomaalida Kenya joogta ee weliba si wanaagsan wax u baratay. warhooy waxaad garataan, haddaydinaan ka qayb qaadan dhismaha dowladda Soomaaliya, in aad garab laadihiin.
day maanta xoog ahaan lahayd dowladda Soomaaliya laguma dhiceen in la yiraahdo tiro koobkiini in 2 milyan la jaro. Soomaalida Itoobiya deganna waxaan leeyahay intaad iska daysaan qabiilka, intaad iska daysaan magacyadan shaydaan, aamina iskuna aamina isuna tanaasula isna garta inaad Soomaali tihiin oo aad mustacmar ku dhex nooshihiin. waxa halkaa Soomaali dhigay waa qabyaalad, waxayna yeesho mooyaane waxba waa soo kordhin weyday. intaas oo jiil ama 4 ama 5 jiil baa maanta maqan marka 1991 laga yimaado dagaaladii ahliga ahaa akhiray jiraan. kuwa maanta nool baan la hadlayaa, waa inaad raadisaan wax la yiraahdo Soomaalinimo, waa inaad nacdaan wax la yiraahdo qabyaalad, waa inaad ka hortimaadaan anaaniyada. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. nin gaajaysani ama cunto haw gaajaysnaado ama xukun haw gaajaysnaado waa gun. been idin sheegi maayo, ma aha gun. shisheeyaa gacanta ku dhigaya, gaajaday ka bi'inayaan, dalkaaga burburi bay odhanayaan. wuuna burburinaya, wayna dhacday. waa tii laynoo tashaday, waa tii jabhaduhu abuurmeen, waa tii beliya baasku dhaceen. ilaahay waxaan ka baryayaa in laga dhex waayo Soomaalida qof u adeegaya dana shisheeye. alxaqiiqa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. baarlamaankaasi wuxuu ku hawl jiraa 4 qodob. waxaan rajaynayaa inay ka soo dhammaadaan. waxaan rajaynayaa aqalka sare inay u gudbaan. waxaan sugayaa in la ansixiyo. waxaan sugayaa in guddiga electionku ay la wareegaan. waxa aan sugayaa doorasho. doorashadu waa inoo wada dan. matalaadda Muqdisho yaan la siyaasadayn. madaxweynuhu 2 aqal buu ka codsaday, wuu soo bandhigay. 2 aqal baanu rabnaa inay ansixiyaan. waxaa soo hadhay muranka qaybta. xalayna waa sheegay, caawana waa ku celinaya. maxaaba loo murmayaa? miyaan dalka dowladii ka jirin? ansixiya, qaybtana dowladda ku celiya, iyadu ha qaybiso. 54 kursi ee hadda lagu fadhiyo aqalka sare yaa qaybiyey. intaa ma garan kari weydeen?
ha boobeen ha la kala badsado dadka qaar ha dulmanaadeen laakiin halkaa ka tixraaca ciddii qaybisay marka niman kale abgaal baa wixiiba wada qaadanayo qaybinaya war ma qaybinayaan baan idin leeyahay shakiga anaa idinka saaray baarlamaankaas idinku isdhaafiya inay matalaad xamar yeelato 13 kursina ansixiya laakiin haddaad ku rakaataysaan aynu ku qaybsanno bannaanka oo yaa idiin idmay xaggee bay ku qoran tahay aynu ku qaybsanno bannaanka xildhibaan baa tahay maadaa qaybin kara ma baarlamaanka sharci dejinta abaa qaybin kara jawaabtu waa maya alxaqiiqa dadaala waa gaadha warhoy soomaaliyey meel kasta oo aad joogtaan dadaala ku dadaala soomaalinimada ku dadaala dantiinna ku dadaala inaad dalkiinna oo cadow loo yahay aada ilaashataan ku dadaala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.